السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قيمة بدنا وكسر هذا مرة لبعض سومالي تكنولوجي. أتاك كسبتها سبسكرايب له. أتاك هروي نورس جوتنا ويلكم وينس أجين. أوكي. وحن كده ترى برنامج كني كمبيوتر تي في ستريكس أنا هاكس. وحن صار جناي كمبيوتر كا ونوت storage كيس ويري هديسك ويري هاي أنا لوش بكرين ونوتين. أوكي ما أنتم حاركينا وحن كل بدلنا على وضع الكمبيوتر. هاد درايفر كا أما هاديسك كا دبتو حاركينا قابك أسوشيدمان أما قابك وشقيان. أوكي. And you welcome once again, my friend is today, and we have seen if you have a less storage hard disk that you cannot install Windows 10 in your computer. Okay, today we are going to see when we switch a hard drive into two laptops, and then we are going to power on. We shall see how these two computers are welcome those new hard drive. Okay, let's start. We have our tools here. Okay. I think we need these three. انت كلمات باسكري هنا، انت كلمات باسكري هنا، سدح هالك ايسر. لأن كمبيوترنا وعصبيه المتابعة يو fair new ويان. Okay. صدق على الكمبيوتر هذا يو عصبيين marka براتكا waxa ku qaadanana computer kan aragtan iyo waxa ku qaadanana computer kan kale asna waa tuushiba okay marka labada computer ayaan furaya hadiska ayaan u kala bedelaya Okay, computer ka waa ka soo saaray hadiskiisa waan ka soo saaray waa aragtaan hadiskiga laba af buu leeyahay laba god ayuu leeyahay inta badan waa aragtaan godkan yar waa godka data godkan waa godka power ka okay power and then data okay computer kan waan ku saarnay hadiskiga waa aragtaan waa asna waa isla meeshii laba god ayuu leeyahay okay god yar iyo god weyn ayuu leeyahay okay inta badan hadiskiga computerada waa isku mid waxba kuma kala duwana okay SSD ha ahaadaan ama hard drive ha ahaadaan labada god waa isku mid oo meesha computerka ay galaan okay maxaa yeelay hadiskiga company ayaa soo saara computerkan company ayaa soo saara okay marka say isku waafaqaan waa inay godad isku mid ay ku heshiyaan okay marka haddii Samsung soo saarto hadiski shirkad kale ay soo saarto hadiski وأنا تقانا كمبيوتر كمركز استعماله سو ما HP با ما توشيبا با ما ديل با ما whatever okay كمبيوتر so marka wax isku waafaqeen general rules oo ah in computerada shirkadaha soo saaran dhan ay isticmaalaan laba god shirkadaha soo saara hard drive kana ay labada god hard drive kooda u soo yeelaan okay marka computer kasta hard diskiisu way isgalaan okay I don't know some computers are different but most of them okay marka waa aragteen computerkan wuxuu leeyahay hard diskan kana wuxuu leeyahay hadiska marka oo kala bedelayna okay so computer kan hadiskan gal ma lahan kana gal ayuu leeyahay marka galka ayaan ka saarana kan the cover up sorry marka video aan duubay okay coverka waan ka saarnay okay hadisku waa qaawan yahay muluq wayaan so labada hadiskina isku qasam rabo okay كان وح كمان يا توشيبه كان يا جلنيا كان وح كمان يا كمبيوتر كان يا جلنيا اوكي okay let's start with this one واركتان labada god ayaad ku aadinaysaa
labada god. Okay, waa isku aadinaysaa computerka saas u gelinaysaa, saa u gelmaysid saas ayuu u gelayaa meesha uu ka qabsanay labada god. Okay, tabtaas ayuu u gelinaysaa si tartiib ah dabeed wax yar ay ku riixaysaa. Okay, no this side. Okay, qaabkan ayuu u gelinaysaa ya hadduu furiso waa ku riixaysaa wax yar. Okay, markuu qabsado wuu qabsaday waa arkaysaa. Okay, kan kalena sidoo kale waa saas usoo kormarinaysa tabta uu yahay ayaa usoo kormarinaysa. Okay, haddaa saa u rogdid ma gelayo. Okay, tabta haddaa usoo kormarinaysa ma gelayo. Okay, marka saas usoo kormarinaysa tabta uu yahay wax yar ayaa ku riixaysaa dabeetana wuu fariisanayaa. Check qaabkaas uu fariistay. Okay, marka computerka aan labada computer u kala bedelo hard diskiga waxaan arkaynaa qaabka isku shaqeeyaan. Hard diskani waxa ku jira Windows 7 ayaa ku jira, kana waxa ku jira Windows 10. Okay, computerka tushiyo mid kamid ah Windows 10 ayaa ku jira. Okay, marka computerka ayaa shidaya. Okay, computerka marka cilad ayuu leeyahay, keyboardka ayuu ka ciladeysan yahay. Let me power on and I see. You have seen muxuu igay bootki ayuu igay. Okay, boot menu ayuu igay dabeetana waxaan ku dhufanayaa enter ayaan ku dhufanaya ama escape oranaya waxaan leeyahay yes. Okay, hadiska gacanta ku haya sababtoo in iga dhacan ka baqaya. Okay, so maxaa maqlaysaan so it's coming. This computer can wash my successfully. Windows 10 is loading and then it's just remaining to just open for us to complete it and we see very well. Okay, so computer can uu aqbalay driver key inkastoo uu qaylo sameeyay wax yar qayla and hadda aragtaan Windows 10 is loading, then we are fine to go. Okay, so this computer successfully power on and successfully loaded the operating system from the hard drive to memory. Okay, you have seen this computer successfully accepted without any error, without any blue screen, without any dark screen, without any whatever screen. Okay, without any message, without any error throwing, just it's fine. Okay, so this computer is fine, it can work. So asxaabay waa aragtaan computerkani uu aqbalay hard drive-ki waa aragtaan it's very nice weeyaan Windows 10 ayaa ku jira. Okay, let me shut down. So computerkan waa damiyay hard diskiga ayaan ka saaranay. Okay, xagga iga dhig, put for me somewhere there. Okay, maxaa haray computer kale ayaa haray. Okay, what next is another computer. Let me put charger. Okay, computer kale ayaan keenay. Computer kale waa aragnay successfully, it was operating very well and computer kale ayaan arkayna. Okay, inuu soo shidmo iyo inuu diido iyo inuu error na siiyo. Okay, let me start the other computers, then we are going to see the error. I hope this computer is going to give us an error, or maybe it will accept it also the same the other computer has accepted. Okay, so let's see what's there, what kind of error is there. Okay, what kind of error is there? A problem has been detected and a Windows has been shut down to prevent damage. Okay,
So check for your virus on your computer, remove any new install hard driver. Okay, muxuu leeyahay remove any installer hard driver. Okay, muxuu ku leeyahay technical information, muxuuna siinayaa error code. This error code, okay, I don't know where you can see very well. Marka error code ayuuna siinayaa. Okay, marka wuxuu leeyahay computerka wuxuuna yiri computerka waxa corrupt gareeyay virus ama virus ayaa attack gareeyay ama waxaad ka saadhaa hard driver cusub oo hadda aad gelisay. Okay, it's correct. Okay, so the problem is not the computer, the problem is hard driver. Okay, so the hard driver has a Windows 7, only Windows 7. Okay, so and only Windows 7 also has, because probably this guy, he brought his laptop and he told me, Ahmed, you remove virus from my laptop. My laptop was attacked, a lot of virus, so he told me to remove the virus from his laptop. Okay, if the hard disk is clean, it can accept. If the hard disk has a lot of viruses, or maybe all the files or all the software operating system, something like that, then it will not accept. It will give you like this error. Okay, the new computer will not read. Okay, so haddii aad haystid laba hard driver oo cusub oo Windows 10 ku jira ama Windows caadi oo faylashiisu caadi yihiin oo aan virus waxaan qabin, you can switch. If you have all the hard driver with all the files and all the operating system, you cannot switch with another computers. Okay, you understand? may fahanteende waxaan leeyahay haddii computerka hard driver ku jira uu yahay mid cusubna maahan wax ka wada operating systemka software ku jira ama faylash ku jira yihiin faylal caadi oo nadiif ah, computerka waa la gelin karaa wuuna ku soo shidmi karaa. laakiin haddii hard driverka isticmaalaysid uu yahay software ku jira uu yahay mid old ah ama uu yahay faylash ku jira ay virus wax wataan, computer marka la geliyo oo kale ma aqbalayo. laakiin computerka hore oo viruska iyo faylasha iyo waxa dhan ay iskula jireen way isku shidmi karaan, way is afgaranayaan. Okay, laakiin computer cusub isma afgaranayaan. waa aragtay computer cusub laba solution wayaan, either in viruska aan ka saaro anoo hard disk aan ka saarin, iyo either in hard disk aan ka saaro. Okay, labada mid ayaa ila gudba. Okay, laakiin hadda viruska ayaan ka saaraya, waa ila soconaysaan, waa casharkeena xiga, muuqaalkeena xiga wayaan. Okay, marka maanta intaas ayaan ogaag tahay, muuqaalka xogaa waa yara dheeraaday. And so the next lesson or the next episode, I'm going to remove virus from this hard driver, then I'm going to install the latest Windows 10. Okay, we are good to go, and now we are going to finalize our tutorial from here. Okay, so inta kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Please subscribe Somali Technology and share with your friends. Any comment you can leave below the videos. Okay, below the videos. Okay, assalamu alaikum.